السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii isboortiga halad kala socoteen ciyaaraha lates juba iyo weliba muuqaal cusub oo xiiso leh halaba maalin kasta in soo gudbino sidoo kale daawadayaal waxaan ku eegi doonaa gudahan ciyaarihii la ciyaaray shalayto iyo weliba qubanayaal kale oo xiiso leh aan soo ku bilaawno barnaamijkan isboortiga hordhacisa kooxda kubadda cagta Arsenal oo mar kale dhagaha laga qaraacay yaasay qaraacay iminka sidoo kale ciyaaryahan Godeza Modino galay qalad weyn qaladkaansi muxuu ku mitaysan karaa ciyaaryahan Godezi oo ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal kulankii kooxda kubadda cagta Brighton and Hove goolhayaha kooxda kubadda cagta Arsenal Leonard Modo in dhaawac halis soo galay waxaad moodo soo kale soo ku qaylinaya ninkooda oo ciyaara kooxda kubadda cagta Brighton ee lagu magacaabo Pai kulanka ayay kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Sheffield United muxuu noqon doonaa kooxda kubadda cagta Sheffield United inay moodaa inay rabto inay Champions League amase horyaalka kale Europa League ciyaaryahan Lewandowski ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern aad moodo inuu jibay rikoorka hore u yaal ciyaaryahanka hore ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Aubameyang لاعبka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi oo la filay inuu qandaraas cusub saxo kooxda kubadda cagta Barcelona meeqaas sano ayuu saxay doonaa imisa lacag ku kici doonaa barnaamijka aad ku ogaan doontaa diyaatay marka ugu horeyso fadlan subscribe gareyso ku dhugan blogga saadooshoo video kastoon soo dhigdo Barcelona kooxda kubadda cagta Arsenal aad moodo inay bilaaw aan caadi ahayn bilaaw aan u farci karin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa yiri maya معقول ما دحي كرتو أرسنال ياد مودين فرجان كما دب سولada horyaalka Premier League ay gool daro qarar kula kulantay kooxda kubadda cagta City gurigada Etihad Stadium kadib markii ay direen 3-0 kooxda kubadda cagta The Gunners ayaa la filayay inay ka soo kabshaan gool daradii soo gaartay balse waxaad moodaa in mar kale dhabarkooda dhulka la dhigay kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa 2-1 dirtay gool daro kaliya maan waxaad moodeen sidoo kale kooxda kubadda cagta Gunners uu ka dhaawacmay goolhayahooda lambarka koowaad iyo waliba qaladaad kale ay sameeyeen ciyaartoyda ciyaaryahan Godeza ayaa mooday inuu qalad weyn ka galay ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta Brighton lagu magacaabo Pai aad mooday inuu qoorta qabtay taasad mooday inuu rabo inuu dilo guddiga feega Ingiriiska ayaa moodaa inay u fadhiyaan arintaasi lagana yaabo in ciyaaryahan Godeza uu miteesto in la ganaaco sidoo kale uu ku darsan karo in lacag iyo waliba lagu daro inuusan ciyaarin kulamooyin kale isla ciyaaryahankan ayaa mooday isagoo la helay wargeyska Daily Star inuu sheegay inuusan taasi ka ahayn si kale balse aad mooday inuu kaliya uu isku dayo iyo canaaq uu ka keenay si ninkoodiga uu galay goolhayaha kooxda kubadda cagta Arsenal Leno ayaa mooday inuu soo gaaray dhaawac halisa kadib markay isku dhaceen ciyaaryahanka weerarka u ciyaara kooxda kubadda cagta Brighton Pai kaasoo mooday inuu dhaawac halisa u geystay xagayo jilibka goolhaya Leno ayaysan u musaabicin ciyaartu sii wato waxaana lagu qaaday garoonka sida caadiga Baalil u qaadir ciyaaryahan markii ay soo gaaraan dhaawac halisa soo kale waxaad arkaya ama shaashidu ay qabteen in ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal ee goolhayaha Leno oo socon of laga day ciyaaryahan Pai isagoo ku yiri waxa tay cadow matid bilaadan hadal noocaas ayaad moodeen ay qabteen kaamirada ama samiicadooyinka garoonka kooxda kubadda cagta Amex Stadium ay leedahay kooxda Brighton kulankii labaad ayaa mooday United ay la balasantay kooxda kubadda cagta Sheffield United oo ka dhacay garoonka weyn ay ku camalatay kooxda kubadda cagta Manchester United Old Trafford kulankaas la filayay inuu dhaxo maalintii Arbacada soo socotay United ayaa moodaa ama ay inta badan ay saxaafada adduunka ka hadlayaan in haddii ay sida la sheegay ama qaab kale ay ku soo gasho waxa la arkay kulanka United la ciyaarayso kooxda kubadda cagta Spurs in qaab ciyaareedka uu ku sameeyay tababar Ole Gunnar Solskjaer qaybtii labaad moodo inay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan balse haddii aan eegno line-upka rasmiga kooxda la filayay ku ciyaarto Rashford, Martial, James, Bruno Fernandes, Pogba iyo Matic ayaa moodaa kulankii hore aad moodaa in ciyaaryahanka Pogba iyo Matic markay soo galeen ay ciyaartu inta badan wax fiican ay ka bedelnay ay kooxda kubadda cagta ay ka gaartay yaase hal mar oo kaliya naga dhameeyay ciyaartii balse United nasiib daro maysan helin guul ay u baahnayeen
kooxda Tottenham ayaad moodaa inay difaacaan caadiyan galeen si fiican ay soo kala ciyaareen sida ayna United ku hasheen ay kala qaataan dhibcaha koox walba ay la galbatay 1-1 عجايب بوندسليغا هديان إنه حد مودين عيارها لو دوسكي لقبان لها العيارات كان يسوى شبق كوب صدق كل كيسا صدق يصدعان عياريان أبريان وهي عياري جري كودا كوبا عكتها بروشا دورتموند أيها سيري كور أو إنه دلي صدق يكو جول وأنا عياريان كسو جدين دلك جرمانكا أو سيدا سمي dalku waxa la inta badan ciyaaryahanka duusan ka soo jeedin horyaalka la ciyaaray waxa la yiraahdaa foreign player ama ciyaaryahan shisheeyo sidaas sameeyay ayaa waxa uu gooy ciyaaryahan Aubameyang oo record 31 goal haysto balse maanta shalaytiyaad moodeen ciyaaryahankan Lewandowski oo jibay soo halkaasi ka dhalay 2 gool oo degdeg ah soo iminka leh 33 gool guud ahaan wuxuu leeyahay ilaa iyo 48 gool ciyaaryahan Lewandowski ayaa la filayaa إنه سنة كانوا دجالميا كوبتا جهابك هوريالكيا جول دالينتيا غرض يوروبا وقدام بيت وحنيجي عياريهان لينيول ميسي عيار كوعدا كوبدا عيتيا بارسونا ياد موديا إن بارسونا يربا إن قندراس لبسنا أسوا بندقان بلس أبها دلي إن كانت عيار كوعدا كوبدا عيتيا بارسلونا oo lagu magacaabo Johnny Messi iyo soo kaleeto madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Joseph Maria ayaa ka wada hadlaya heshiiska ciyaaryahankani loo kordhinay inuu 2 sano kale sii joogo kooxda kubadda cagta Barcelona inkastoo sanadkiisu sii weynaanaya balse waxa soo kaleeto heshiiska ku jira aan arkayna in ciyaaryahankan sanad kasta uu dheereysan karo ama uu iska istaajin karo heshiiska taas oo shardi uu Lionel Messi ku soo diray halkan igaraalada برنامجكي سبورتي وانا انت يبقى الى اسمه دافنو باي باي